dhaqsada isla eegta halkani waa goob ku taala magaalada Burco waxaana lagu bartaa jimicsiga maalin walba wax yimaada dad badan kuwaas oo ka yimaada xaafadaha magaalada Burco goobtan waa mid u gaar ah haweenka sameeya jimicsiga kala duwan waana takaliye ka furan magaalada Burco waxayna shaqeynaysaa muddo gaaraysa 3 bilood waxaana goobta lagu magacaabaa badan gym make up waxaana goobtaasi kala qaar kamid ah haweenka oo halkaas yimaada oo sameeya jimicsiyo kala duwan macallimada goobtan ayaan Cabdilaahi Cilmi ayaan badan ayaa sharaxaad ka siisay telefishinka caalamiga ee Saab sababta keentay in haweenka in goob noocan kala loo sameeyo kuna jimicsadaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada ayaan badan gym and beauty anigoo ayaan Cabdilaahi Cilmi ayaan badana marka waxaan leeyahay hablaha gobolka Togdheer jooga ku soo dhawaada gymka ku soo dhawaada markaan arkay gobolkeena Burco inaanu ka furnayn goob jimaane ka furnayn hablihii jaamacadaha dhiganay marka la fasaxo ay 300 kilomitir Hargeysa u qabanayeen ay raacayeen gaariyaasha ay gym darti u doonanayeen ay ana fikradu u soo dhaweeyay masaan gobolka Togdheer u keenay sida daraadeed hablaha Burco waxaan leeyahay jirka dhista is hagaajiya is qurxiya iyana laga qurux badnaan ayaan train tele go'aamka halkan ku barato oo ardaydan aad u dhigtaa waxaan ku dhigaa ilaa imika 30 arday baa dhigata wali waa cusayb ilaa bishii saddexaad buu furan yahay marxaladaha kala duwan ee la maraa gymkan hablaha maadaama ku cusubay gobolka Togdheer maxaad oran lahayd marxaladii u maray gymka hablaha horta in qalabka lagu ciyaaro muhiimad maaha qalabku decoration ahaan iyo qurux ahaan buu ma garanaysaa inuu wacan yahay laakiin kaliya ta fitnesska jirka la sameeyo jimicsi jirkaaba la sameeyo exercise jirkaaba siiya cuntooyinka cunayaan waan si kala sheegaa sida darteed bandhiga casharada TV-ga waan ugu soo bandhigaa aniguna waan siiya exercise-ka hablaha waxa jira imka hablo dhuudhuban baa jira oo qalqalalan oo deynta wax nafaqo leh cunaa jirkooda dhisaya qalabku kuwaas xoog iyaga ugu wacan yahay laakiin hablaha kale baruurta iska ridaya waxaanu siinaa habeenka jimcuhu kale ku badbaanu geynaa ciyaarsiina inta kalena gymka ciyaarano waliba fitness-kan caadiga ah ee la ciyaarayo ayaanu siinaa qaar kamid ah ardayda sameeya jimicsigan ayaa iyaguna halkaasi ka daran celiyay jimicsiga ay sameeyaan waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanay maanta in magaalada Burco looga furo hablaha qaybta gymka taas hadaan oran karo hablaha marka hore way dhuudhuubnaayeen laakiin jirka ugu sii qurux badanaya anigu waxaan kamid ahay ardayda dhigata ayaan badan gym qaybta gymka waxaan leeyahay hablo bulshada gobolka Togdheer ku soo dhawaada ayaan badan gymka dhigata gymka horta kale markii hore Burco ma lahaan jirin ragumba meelaha looga yeero waxaan jiray laakiin imika waa horumar la gaaray hadii hablaha gym loo sameeyay ayaan badan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay anagu waxaan ahay ardayda maxaa gymka dhigata make up kana dhigata bulshada reer Togdheer aad baan u soo dhaweynayaa make up shidan iyo gym wacan ayaan ku soo dhaweynayaa magacaygu waa Munacwad Maxamuud waxaan ku faraxsanahay ayaan badan gym way sababta bulshada Togdheer markii hore ma ilahayn baruurta cadow bay noqotay hablii foolxumadii waxaan ku baruurta foolxumay noqotay waxaan leenahay hablaha naga maqana ku soo dhawaada ayaan badan gym waa Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Burco